warbixin ay baahisay warbaahinta caalamiga ee Honles ayaa daahfurtay xiisaha sii kordhaya ee Washington iyo sababaha istaraatiijiyadda ee wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka Maraykanku uu si aamusan ugu soo weecanayo xeebaha Somaliland gaar ahaan dekedda Berbera si loo abuuro shabakad saad oo adkaysi leh isla markaasina la isku halayn karo taas bedel ku noqon karta cidhiidhiga iyo khataraha amni ee ka jira Djibouti iyo marinka muhiimka ee Bab el-Mandeb. Warbixinta ayaa sidoo kale iftiimisay in Berbera tahay xarun istaraatiijiyadeed oo muhiim ah isla markaasina leh fursado saameyn amni, badda cas, gacanka cadmeed iyo dabacsanaanta howlgallada militari iyo helitaanka bedel ka madax bannaan khataraha juqraafi siyaasadeed ee gobolka. Arrimahaasi oo ay tilmaamtay in si cad ugu turjumayaan qorshaha Maraykanka ee xoojinta saameynta reer galbeedka iyo marinbadeedka ganacsiga adduunka iyo xasilloonida Geeska Afrika. Warbixintan ayaa si cad u muujisay muhiimadda Somaliland u leedahay tartanka quwadaha waaweyn ee caalamka. Waxa kale oo ay xustay in Somaliland ay si degdeg ah ugu soo baxday mid ka mid ah gobollada ugu istaraatiijisan sarreeya adduunka, iyadoo si weyn u sii xoogaysanaysa loolanka juqraafi siyaasadeed ee Badweynta Hindiya iyo Marinka Cas. Taasina ay tahay sababta dhabta ah ee ka dambaysa istaraatiijiyadda cusub ee Washington ay xoogga ku saarayso iskaashiga Somaliland. Waxa kaloo iftiimisay warbixintu in sida istaraatiijiyadda cusub ee gaashaandhigga Maraykanku ay xoogga ugu saarayso hannaanka saadka ee baahsan si loo gaadho adkaysiga iyo hufnaanta howlgalka. Xarumaha kaabayaasha sida dekedda Berbera ay ka ciyaari karaan doorka sii kordhaya ee shabakadaasi istaraatiijiyadeed, kuwaasi oo ka dhigaya Berbera xarun muhiim u ah sugidda amniga badda, baahinta awoodda militari iyo helitaanka bedel lagu baaqsan karo cidhiidhiga juqraafi siyaasadeed ee Djibouti. Dekedda Berbera iyo kaabayaasha ku xeeran ayaa door sii kordhaya ka ciyaaraya shabakadda cusub ee istaraatiijiyadeed Maraykanka. Berbera waxay bixisay fursad aan jirin saldhigyo kale, sugidda amniga badda cas, baahinta awoodda militari iyo helitaanka bedel lagu baaqsan karo cidhiidhiga juqraafi siyaasadeed ee Djibouti. Isku darka dekedda casri ah iyo garoonka diyaaradaha oo u dhow ayaa ka dhigaya xarun muhiim u ah oo laga faa'iideysan karo mustaqbalka, ayaa lagu yidhi warbixintaasi. Warbixintu waxay intaasi raacisay fahamka kor u kaca Berbera ayaa ka caawinaya in la sharaxo sida awoodda badda, amniga ganacsiga, arrimaha juqraafi siyaasadeed ee Somaliland ay u kobcayaan sanadahan soo socda. Isbeddelka ayaa ka turjumaya dhiirigelinta shabakadda adkaysiga leh, halkii Maraykanku uu ku tiirsanaan lahaa hal saldhig oo weyn oo ah sida Kamlon Noore ee Djibouti, taasi oo ka dhigaysa Berbera xarun muhiim u ah oo ka baxsan cidhiidhiga iyo khataraha wakiilada shisheeye.